ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka qayb galay kulan loogu duceynayay Allaha u naxariistay xildhibaan Aamino Maxamed Cabdi iyo mas'uuliyiintii kale ee ku geeriyooday qaraxii dhawaan ka dhacay magaalada Beledweyne. waxaa sidoo kale ka qayb galay kulankan ducada ah madaxdii hore ee dalka iyo qaar ka mid ah xildhibaanada dhawaan la soo doortay. ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa sheegay in xildhibaan Aamino ay dileen kuwii dilay Allaha u naxariistay Ikraan Tahliil, waxa uu ballan qaaday in uu cadaalad u raadin doono Ikraan iyo Aamina. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. wa runtii geeri xanuun badan aniga ka shakhsi ahaan Aamina waxaana dhaxmaray arrintii Ikraan Tahliil oo aad la socoteen siday ku bilaabatay ilaa hadda meesha ay marayso. saan ka ballan qaaday maalintii ugu horreysay ay yimaadeen Aamina iyo Ikraan hooyadeed iyo ugaaskaba waxaan ballan qaaday una sheegay inaan arrintaas god u galayo haddii ay igaarsiiso. ballan ayaana waagaas qaaday, welina waa ku taaganahay. laakiin waa la igaaga baxay, dad badan ayaa igaaga baxay. dagaalkaas markaan bilaabay dad badan ayaa kusoo gabagabeeyey oo ragga kala celiya anigii madaxweyne Farmaajo. ma ahayn targetkeenna madaxweyne Farmaajo ee wuxuu ahaa dadkii falkaas geystay Ikraan Tahliil oo ay Aamina cadaaladda u raadinaysay in maxkamad la saaro. laakiin waa la siyaasadeeyey, mana ka harayno hadduu Allah subxaanahu wa tacaala idmo. waxaan kaloo aaminsanahay, sidaan u aaminsanahay in aan cawadaba dhiman karo, in Aamina gacanta ka gardaran ay dishay ee ahayd gacantii Ikraan ka dambeysay. sababtaan saas u leeyahay wax kale maahan. walaalkay Cali Guudlaawe subaxii dhaweed uu soo wacay oo ay iskhilaafeen gudoomiyaha siid ee Hirshabelle, kaasoo doonayay in kuraasta uu xirnaato oo dad gooni ah la siiyo. markuu walaalkay madaxweyne Guudlaawe aqbalay in kuraastaas la furo oo ila soo xiriiray garabna aan ku siiyay in ninkaas la bedelo, waxa isla markii aniga madaxweyne Guudlaawe ka wada hadalnay furitaanka kiiskaas ee Aamina ay kamid tahay in dhibaato ay soo gaari doonto. ilaahay iga sareeyo. saacad ka yar kadib message ayaa ii soo dhacay wahaya oo leeyahay kursigaas Aamina furitaanka afurteen Bob iyo ujeeda u leedahay, laakiin waa waxa ka hesho Cali Guudlaawe iyo reer Hirshabelle waa iska celinaynaa, adigana waa iska ka celinaa. wahaya message waa u dhimana, waan u dhiman doonaa hadduu Allah subxaanahu wa tacaala idmo. Aamina walaasheed. Mukhtaar Cabdi Aadan, Ariel TV, Muqdisho. dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyey in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahoodu ku helaya adeegga e-dahab ee moobilkiisa gacanta. waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida taxalladeeda. dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.